dacwado fara badan baa hadda ku socda marka dhinacaana way kaga guulaysanay hadda waxaa lagu qasbayaa oo aad iyo aad xoog loo soo saaraya meelo fara badan oo reer galbeedka ah inay Ethiopia si dhab ah u soo noqoto wada hadalkii haddii kale ay iyadu tahay qofka dadka muxuu ahaa hay-adda nidaamka khaldan ee wax khaldaya aan loo adkaysan karaynin intaa in leeg siday ugu adkaysan doonto laana iyadii baa hadda maxayba ogolaan maxayba si ku nuuga ama ka nuugi ayagii baa amar kala qaadanaynin oo lafna waxaa sir la geli karayo oo aan la saxeexan karaya hay-ad adag oo amarkeedu fulayo waftiga meesha imanaya hadduu saxiixo mid hadduu doono korneyl Tigray ku diidaya oo odhanaya ka kac waa warqad saajin taag kugu qoray saajin kugu tuuriyo wey warqad maxay jam taag kugu qoray saajin kugu tuuriyo maray maartay lahaayeen marka waxa weeyaan halkaas waa guula aan xagga siyaasadda ka gaarnay waxaa jira guusha aan gaarnay waxaa ka mid ah oo ayna dadku aad u fahamsanayn oo ah kaydka ugu weyn ee halgankeena oo ku yimid adkaysi yani haddaad adkaysato marxaladan aan hadda ka hadlayo ee Etoobiyana sii burburayso Soomaaliyana ilaahay idankii ay cagaheeda ku istaagayso oo ayna noqonaynin in saajinkii muxuu ahaa Tigray ahaa buunan amarka siinin madaxweynihii Soomaaliya sidii meelo badan ka dhici jirtay hadday heerkaa gaadho maxaan ku gaadhnay waa waxa la yidhaahdaa adkaysiga wey adkaysi weligaa badnow weligaa xoog badan waxaw haddaadan adkaysanin meel ma gaadhaysi waxaanu halkan ku gaadhnay tawakkal min ila Allah ilaahay baanu isku tiirinay oo waxaan nidhi bilow aadmi baan nahay waan dabaabaynaa waa waxay laakiin waa inaynu maadaragtay ilaahay ku tiirsanaano intaan leenahay cid kalaan ku tiirsanaanaynaa ciidanka maanta halgamaya intaa la-eg hadduu caawo oo dhan roobku uuna kaa qaadin salaadu markay kacdo iyagoo roobku da-ay wada tukanayaan macnihii waxaa intaa la akhriyayaa waana xarunta meesha bucda ay u halgankeeni ka socdo ee shacabweynaha ku kasbadeen ee dadweynaha ay ku kasbadeen ee ilaahay ku gargaarayo waxa aan iyadana ku guulaysanay aaminka isku kalsoonida maalintaan halganka bilaabaynay waxa weeyaan cid aaminsanayd inaan halgan kusii jiri karayna intaa la-eg waa dadkeenaan xataa marmarka qaarkood aaminsanayn waana garti Soomaaliya ku taageeraynin cid kale ku taageeraynin marka waa qisas aan soo celcelino xagee dabada ku haynaa yaa hadda ina taageeraya xageybinu yani waxaasoo idin waa qisas jira buur ahaw ama buur ku tiirsanow yani waa xageynu u soconnaa hadda waxa weeyaan waxay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya ay gaadhay haddii ay Soomaaliya u baahato Soomaaliya maanta hadday u baahato oo shisheeye Ethiopia ay handado iyada hadda iskaba ogol iska Soomaalida iska ogol soo qabsamay la galguduud ee halkan iyadoo hataa weydiisanin maxaa jira kuwa kale amisoon iyo waxbay ku laakiin Ethiopia waxay ku timaadaa saxiix la'aan intay rabtay soo qabsataa kusoo gasho laakiin hadday saayeesho inaan anagu soo gurmano sababtoo ah waad arkaysaa adduunka isbedelka ka dhacaya koonfurtii Suudaan baa waxay hadda leeyihiin annagana ciidamo Soomaaliya loo soo dirnaa dawladdii Soomaaliyeed ee geeska Afrika ay xiddigeedii Afrika ay oo hay'ad saad uga ilahay in maanta ay Djibouti ay soo dirtay ciidan Djibouti koonfurta Suudaaniyadu ma jabhad bay soo ahayd sida nade bal Djibouti waa soo diraysa oo isla markaa hadduu malasanaaru farta ugu yeedho ugu imanayo kii malaskii dama jooga hadda yani kii beriga marka waxa weeyaan hadda waxaa jira heerkaasaan gaabshiisanahay inaan waxaa weeyaan war Soomaalidan inaan maskaxdeeda abaabulkeeda hanuuninteeda wuxuu sheegideeda habsidan Ethiopia ka cabsanayaan inay been tahay
oo ay mudatuuluna ka cabsanayaan inaan halkaa kaalin weyn ka qaadano baltooji wax kale oo nala tareen marka heerka aan ka gaarnay isku kalsoonida leanna haddii aad isku tashato oo aad dagaalanto maanta hal qof oo ku weydiinayo odhanaya xaggeen ku tiirsanahay maxaan yeelnay ma ay jiraan dadkeennuna dhibkii iyo cadaadiskii waxay ka qaadeen adkaysi iyo ficillo iyo cara intay ka qaadeen qixintan la qixinayo qaxootiyo way ka dhooban yihiin intay cara ka qaadeen bay waxay marayaan meesha ugu sarraysa waxay yidhaahdeen wada hadalkii markii la diiday dastuurka ma ogolaanayno gudoomiyaha wuxuu yidhi maxaad dadka nagu markii hore show meel hoosaanu la joognay haddayba naga yaabanahayn inaan dastuurka ogolaano ilaa heerkaa inaan la joogno maanaan moodaynin buu yidhi gudoomiyuhu ileen waxaanu ka cabsanaynay bay yidhaahdeen inaad ogolaataan dastuurka waa dadka gudaha ku jira waxay yidhaahdeen haddaad ogolaan lahaydeen qolada gudaha soo tabinaya warkaa odayaal halkii koobkii aan waaidin siinay baan idinka magdhabi lahay sababtoo intaanu jabnay oo nala laayay oo wax kasta hubnay inaad hadda tidhahdaan etoobiyanimaanu ogolaanaynaa taasu waxa weeyaan annagaa idinla dagaalamaynahay marka dadkeennii cadaadiskii iyo wixii adkayskaasu ka gaadhay midkii awdiriye uu sheegayay professor محمد عثمان كانوا يسووا كل كيسيو الله سينا يمودية متى كان كل بلواد قفوا ولكن الله قاعدين الله سينا يا واللي بالعكا بحنايا ولا له شيء قرب تشوفوا صاقر ما قرنا ينضدكي دبده جوغي ودلكي انكو سو لابت قحوتي iyaga ka soo caray laana kuwaas way u yihiin inay soo noqonay laakiin qurb joog dalkiina maalgeliya kale maalgeliya oo kii aan maalka lahayn waa la gumaanayaa dhulkiisina waa laga qaadanayaa kii aan maalka lahayn waxaa intii laga qaadaa kii maalka lahaay qurba joogga ah yaa halkaa ku hodmaya waxaa ku hodmaya qof unde dulli ah anugu waxaan ku sheegay dadka noocaas oo kala ma garanayo qaar noocaasa yaa waxay ku jiraan intay noqdeen bay leeyihiin walaalkay iyo reerahanagii baa xidhxidhano inuu sii daayaanu yaan ku rajo weynahay maxaad kaga faani berriba wuu xidhi adigu baa kol walba bay garaynayso ma aho inaad lacag bixiso ama aad adigu is iibiso marka waxaa weeyaan arrimuhu halkaasay marayaan maanta sidaa mar hadday noqotay waxay qaadatay jabhaddu istaraatiijiyad ah in runtii lasoo afjaro gumaysiga noocaasa looga adkaysan karo ku soo gabagabeeyay wixiisii aad arkayseen shirkii xumaaya qurundaaca ah dadka sida loo baxdilayo in caalamka oo dhan kameradu ay hayso oo laga sii daynayo janalada laga sii daynayo Soomaaliya oo dhan daawanayso dadka sida loo galiyo markaad aragtay ilaa heerka markii dadka la gaarsiiyay xayawaan baa dadkii laga dhigay dadkii nooca loo dhigay ma adkaysan karayna waxaan arkayaa inaan loo adkaysan karaynin in ummaati ma aragtay loo si fiican loola dagaalamo oo dibad iyo gudaba laga waxeeyo runtii gudaha si fiican buu ciidankii u hawlgalay haddana waxa weeyaan waxaa la soo warinayaa in qolyihii muxuu ahaa uu hadda inay leeyahay dadka soo dadkeena odayaal xidhxidhayo la leeyahay ilaa ragkeena dagaalamo marka ciidankiisii hore wax cararay iyo wax fakaday iyo wax xidmay iyo wax uu noqday ay baaba'een ciidankiisii isaga ka Itoobiya isagu ma laha laakiin kii isaga gaarka u ahaa ee uu dadka ku caburinayay ma jiro maanta waxay ka dhigan tahay isagu jirin wax waa ka sii jira laakiin ciidankaasu ciidan hadda muqaawamo sameynaya ma aha isagiina hadda sidii hore uu aad uu galoodayaa qoladii Addis Ababa iskuma ay fiicin halkaa waxaynu u baahannahay dabada iska raacin baynu u baahannahay gargaarka idinka aad geysataanna waa mid laba jeer adiga ku anfacaya aakhiro iyo adduunka sharaftaadii dunyo iyo sharaftaadii iyo muxuu ahaa caqiidadaadii aakhiro sidaas daraadeed waxaan isku ogaanaynaa inaan halganka kordhino halgankii wuu koray
mar hadduu korayna kharashkiisa iyo effortiga uu baahan yahayna wuu kasii badan yahay intii horeeto waxaan idin leeyahay insha allahu guuleysta waana aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin وهجاء آد يوم سيها قدوميها جبهة قدومية كحية جبهة ودري حرية أولادين يا دكتور محمد إسماعيل عمر وحنفليا إن كفى إليستين قدام بسبدل كالسياسة دير منطقة جيست أفريقيا وسي أقوى سرقودها أنتهاي ودكتور فوقا بدقي وهجاء دمركا أيا لليه هي هدي جيران عد وخلص دمركا مفقد وجديدة يسوي وقت العديدي هي حق دمركا يا ربعين وما فقدي فأما وهجاء حامية يا ولا يا خالد ولا يا خالد يقول البوليس سواء أسرع runtii waxaan malaynayaa wariyuhu wuxuu yidhi gabayad kusoo talagashay laakiin waxoogaa waa iska yaqtiirooday oo margabyaamihii saasaan u sheegi lahaa inuu hadda kadib waxoogaa kamarada hoose iga yaqino sakaroolayaashii sanadkeena joogiyo suxurkii dhaqaaqiyo suusamo wayaanihii saacoodii baa dhacalasa dadka reegii rag baa soorka ula baxay sacabkaan tumaynaa calankaan suraynaa saadaashu waa guul sooyaalka taariikh sacabkaan tumaynaa calankaan suraynaa saadaashu waa guul sooyaalka taariikh waxaa loo sameeyaa buugga loogu sugayaa sanadkiinu joogniyo sanadihii horee tegey wixii soo sugnaan jiray sadar inaanu kaa lumin kii siriya caad ama kugu sameeyiyo sinjigaaga kii neceb iyo kii ku saacida samahaaga kii jecel sumadaad ku garatiyo taariikhdu waa saca kala sooca weeyaan sahankii la dirayba saac iyo barwaaqiyo sareeda inoo helay ninkii seexday buu siciisi dibi dhalay sideedii aanay noqonine sara kaca dadkaygow aynu calanka saarnay taasi taasaan kaga gudbayaa bal hadda iyadoo kale gaabanna waan inoogu tuuraya haddii lahayd mo dhagaysi wanaagsan isagana jidadkii la soo maray wixii socod la soo jeexay wixii la soo jibaaxaba haddaa nala dul joogaaye aniguna jawaab gaaban waa inaan jagac ka siiyaayo jahliyadaha ogaadeenyow jawigu waa guura jamaladii inoo kacay jarabti reeg iyo jaajuuska nimankaa odhan jiray ee jahligu aafeeyey jidkii qoraxda lahaa bay weli ku joogaane wax badan baan ka jooga nidhi way ku jabayaane loo jixijixi maayo waa inay abid jibaabaane jaanqaadka lugta jeebka iyo maskaxdu waa inay meel wada jeedaane hal jiiraa inoo dhiman inaan ka wada jeexnaayo oon joojinaa calankii wax badan jeelka loo qabay jaajuuska uma sheegayiyo jaahil dhagaweyne kuwa jecel xornimadaan rabaa inay wada jiboodaane jacliyadka ku dhacda baan rabaa inuu jeexdin geli waayo jarar waayaheediya inuu jawigaa feeriya inuu jarar ka caagaayo jawigaa feeriya inuu jarar ka caagaayo kuwa jecel xornimadaan rabaa inay wada jiboodaane kuwa jecel xornimadaan rabaa inay wada jiboodaane kuwa jecel xornimadaan rabaa inay wada jiboodaane jaajuuska loo sheegayiyo jaahil dhagaweyne sara kaca dadkayga calanka saarna وما تنتهي لها سنة بالخصوص ولا حضرتها تعتقد بعد الله إنها